السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال aad baan idin salaamayaa meel kastoo aad joogtaan iyo si walba oo muuqaalkan idin soo gaarayo waa saaxiibkiin cabdirashiid ciise cali qanciye oo muddooyinkan far badan aad iyo aad hadda waa waqti dheere aad weyseen waxaa la yiri bini aadan iswaaye arrin lay kala gedisay reer xamarka yaa sidaa kuma maaha sanad cusub ayaa la galay 2022 bishii koowaad ayaynu waliba bilowgiisii ama 10kii hore ayaynu ku jirnaa saaxiibo badan ayaa muddo kala maqnaa waxay rajeynayaan sanadkan inay kulmaan dad badan oo iyana colaad ay ka dhaxayso waxay rajeynayaan sanadkan inay heshiis noqdaan oo ay iscafiyaan sidoo kale lamaanayaal kala maqanna hadda waxay doonayaan inay sanadkan isu yimaadaan ilaahay dhamaanteen qulubteena isku soo wada dubo saaxiibada kala maqana waxaan leeyahay saaxiibka rumaado ku saaciida ma jooge uu safarka yaalood u sii hoyata ma laho saaxiibkaaga hadda waa gacantaada bidix ama midigtuna maciin male hadday bidixi maqan tahay saaxiibada kala maqan aniba saaxiiba ayaa iga maqan shoble cabdirasaaq maxamed maxamuud zaygan fuad riyo maxamed faarax rag baa weyn baan tabayaa ma garateen iyo saaxiibo badan oo ay ka mid yihiin baada ciyaaraha saaxiibkay mudday rag badan baa meeshan iga maqan iyana waa salaamaya saaxiibkay cabdinaasir nuur cali aadan socdaal ninkaas socdaal isna si gaar baan u salaamaya oo saaxiibkay taageeraha weyn ee liverpool insha allah waxaan rajeynaynaa sanadkan annagoo nabad qabna ilaahay inuu nabad kulansiiyo muddo ayaynu kala maqneen janaalkanna maalmahan ma uusan shaqeyn sababo jira awgeed waxaa la yiri mashquulku waa iska xaal adduun waxaan rajeynayaa saaxiibada itabtay ama ii xistay ee doonaysay inaan horumar ka sameeyo sanadkii tagay ee 2022 janalkayga in sanadkan aan waqti rajeynayo inaan u helo idinkuna aad noqotaan garbahayga haddii qofka bini aadamka uu maxaa la yiraahdaa haysto dhiirigelin waxa uu samayn karaa waxyaabo badan hadafkayga koowaad ama targetkayga sanadkan waxay noqon doontaa bahda saxaafadda janalkayga youtube-ka inaan kala kiciyo sidoo kaleeto astaan sports iyo waliba dhinacii warbaahintana halkooda shaqada aan kasii bilaabo maadaama labadii sano ee ugu dambeysay arrimo aniga iyo gaar aan iskaga mashquulsanaa hadda xaalka qurbaan waa iska taqaaniino mar haddii la yimaahdo qofka way la sii tagaysaa qof baa waxaa arkaysaa wadankii ayuu wuxuu ka maqan yahay 2 sano ayuu ku darsadaa 4 sano ayuu maqan yahay 6 sano kadib waxaa la gaarayaa 8 sano qofkii waxaa arkaysaa 10 sano qurbaha ku maqan anaa hadduu 10 weli uma dhawaan laakiin waxaan rajeynayaa dalkayga hooyo iyo weliba caasimadeydii halkii xudunteeda ku dugneed halkii aan kusoo barbaaray ku dhashay kusoo koray wax kusoo bartay magacan maanta aan leeyahay dad badan ay garanayaan halkii aan ku yeeshtay muqdisho inaan insha allah imaado saaxiibadayda sidoo kaleeto intii aan kala maqnay weli sidii baan idin ahay anigu weli sidii baan saaxiibadayda kugu tumaya idinkuna waxaan rajeynayaa sanadkan cusub ee 2022 inaad isoo dhaweysaan garabkayga noqotaan adduunyadu waa iska taako waxaad arkaysaa youtube-ka markaa timaado in dad badan oo Soomaaliya youtube-ka ay ku yaaceen qaarkood waxay soo gudbiyaan waxyaabo xigmad leh oo wax laga faa'iidi karo ani ahaan waxaan daawadaa janaalo fara badan oo Soomaalida wax ku soo gudbiyaan wallaahi dadka qaarna waxay daawadaan janaalo waxyaabaha qosolka ah kuwa waxaa jira waxyaabaha xun soo dhiga ilaahay inta xumaanta wado magaca Soomaaliyeed hubanna ilaahay shartooda hanaga xijaabo waxa la yiri waqtiga marka uu sii socdo wax uun baa arkaysa hadda cimrigaaga hadii raago gel dhalaya arkaysa ma garateen marka dhinacyadaasna ina waa saari doona diiradda waxyaabo fara badan waan falanqeyn doonaa muhiimad gaarna waxaan siin doonaa waxyaabaha faniga ah iyo waliba nolosha qurbaha gaar ahaan wadankan jarmalka noloshiisa xaqiiqatan aad iyo aad ayay u kulushahay aad iyo aad ayay u adag tahay oo wadan haad ah haddii laakiin qofka uu wadankan la qabsado wax barto ama shaqaysto noloshiisa ayuu kaafin karaa
noloshiisa iska dhaafay xitaa tan qoyskiisa ayuu wax u qaban karaa waxaa loo baahan yahay oo keliya in qofka uu sameeyo dadaal juhdi dalaan dalkaaga ahayna waa dareen ku joog wararka jarmalka iyo warbixinada soomaalida la xiriira ganacsiga qaabka soomaalida ay u samaystaan jaaliyadaha iyo weliba jarmalka waxaa la sheegay inta badan dhinaca jaaliyadahu inay aad iyo aad yani ugu wanaagsaneen marka loo eego dalalka Scandinavianka oo soomaalida muddo hore ay joogeen hadda soomaalida jarmalka imaaday qofku ugu dhow waxaa la sheekaysato 2010kii dadkii yani jarmalku ay soo qaateen xoogooda laakiin waxay soo galeen 2015kii markii Angela Merkel iyo dowladda jarmalka dad badan ay u fidiyeen maxaa la yiraahdaa soo dhaweyn qaabilaad qaxooti far badan ay qaateen oo Syriaanku ugu badan yahay Soomaali far badan halka ay ku qaateen Soomaalida waddanka jarmalka jooga maanta waxay ku dhow yihiin ilaa 60,000 oo Soomaali ah waa tiro aad u yar marka loo eego tirooyinka Syriaanka Afghanistanka Eritreaanka waddankan ku nool Berlin caasimada waddanka jarmalka oo kaleeto haddii aad yani eegto waxaad arkaysaa in ku dhawaad 40,000 oo Syrian ay ku nool yihiin halka jarmalka guud ahaantiiba Soomaalida ku dhaqan ay yihiin ilaa iyo 60,000 marka waa nagala badan yahay ma aha haddii nagala badan yahay inaan anaguna waxtarkeena uu yar yahay Soomaaliduna waxay tiraahdaa hadal badan han ma buuxsho waxaa loo baahan yahay waddanka in laga dhex muuqdo wax badan la qabsado horumar la sameeyo Soomaalida dhinaca guurka dad badan baa halkaas ina doonaya sanadooyinka hore guurka Soomaalida aad buu u yaraa dabcan laakiin hadda waa la soo galay farax badan hore waa u joogin waddanka jarmalka xalimooyin badan waa soo galay sheekooyin dhacdooyin ku dhacay Soomaalida naftigooda oo qisooyin aan ka qoray ayaan idin soo gudbin doonaa oo aan qaarkood xataa aniga caloosha ay xanuuntay boga ay xanuuntay waxay igu sii darneed nin jecelkiisa sugaayay siduu u sugaayay hadda ninka hees baan ka sameeyey fanaankii aan u dhiibi lahaana waan doorto saaxiibkay Cumar Jaajab baa fanaan ah jaaja walaalkay iga yar aad iyo aad ku salaamaa saaxiibkay war saaxiibayaal soo dhaweeya odayga mar kale waa uu soo laabtay rog cadaygii soo rogaal celiyay baa la yiraahdaa muuqaalo fara badanna insha Allah toddobaadkiiba madiin bal qaadi karo iska bani aadana ahay qanciya ah way ogtiin hal maraan iska baxa maba li arkayno laakiin sanadkan 2022 waxaan rajeynayaa in aad ila socon doontaan oo aan idin soo gudbin doono waxyaabo fara badan jacaylkeeni loolida waayuhu ka lariyay inta uu la xaadsaday leesiri waxba uma harin mar labaad cusboonaa hilaaciye heel lagu uu isku taagiyo wuxuu heray lixaad hadda anigu jacayl maahan idinka idin jeclahay qanciyo YouTube-kiisa muddo wax uu soo gali waayo waa mashquulay laakiin sanadkan ayuu soo rogaal celiyay heesta Cabdiqaadir Jubbo aniga turjumaysaa ma garanaysaan la socotaan waa dareemo waxa ugu sameynaysiin ma garateen saaxiibayaal dacwa idinka ahay subscribe tahay loobina waa dareemo haya Captain Larry xigmadaas in reer Hamburg ayaa laga hayaa Master Belarus aad baan ku salaamayaa isku soo wada duub saaxiibayaal saaxiibo badan qurbaha marka imaado toor waxyaabo badan baa la arkay waxa iska arkaysan nin dhalinyaro oo iska uqdadaysan adigu kula dagaalsan wuxuu kula dagaalsan yahay adan ogeyn rogdada la iska saaro Soomaalidu waxay tiraahdaa dad waa dadkaaga dal waa dalkaaga dalan dalkaaga heen waa dareen ku joog dad aan dadkaaga heenna meel ay ku geenayaan male inay lug iyo maxaa la yiraahdaa gacan ka jiraan maahane garabku ma siinayaan qofka walaalkaaga ee dadku ugu dhow ceesh awad cunteen waxa loo baahan yahay inaad garab istaagto ka dambaysa hadalkiisa aad qaadato aad ku soo afcilin waxa loo baahan yahay inaadan maxaa la yiraahdaa nin rag Ilaahay haduu ka dhigo kale inaadan guriyamin ninka ragga uu maado tiraado war heeye intaas ayaan ka tabanaya halkaas hadalka ku joojiso laakiin Soomaalida qurbaha aad bay dabeecadoodu u qalabsan tahay ana bondere iyo Rigley si aan Rigley ahay original laakiin baashalkayga bondere aha reer bondere hadda jidku socto waa lagu forjeena qurbaan waxaan ku arkay qof baa waxa leedahay waraa maraxo ii waran walaal maana marax buu ku leeyahay goormee marax noqda aniga seeb ii dhigi kartaa يعني waxaas waxa keenayso yani stresska qurbaha waa dareemi karnaa waxaan ugu sameeyay magrateen waxa loo baahan yahay marka inaad dhalinyarnimada iyo baashaalkii xanaaqan loo badarin hal fariin waa siinaya 2022 ayaa lagu jiraa maanta Soomaaliya waxay maraysaa doorashada xaalkeedu waan ognahay waa uu cakran yahay haddii
maanta ragga siyaasiyiinta is haysta aad ku taageerto yacni maxaa la yiraahdaa baadilnimo waxay ku tahay damiir xumo qofka siyaasiga ee qaldan inaad qaladkiisa u sheegto adigoon reer iyo maxaa la yiraahdaa luuq ama ciyaalka xaafadda aadan gelin waa dhexdhexaadnimo war maanta waa idiin burqaday saaxiibayaal muuqaalo badan ayaan idiin soo habeyn doonaa saaxiibkay cabdullaahi ilay ayaa sidoo kale iga maqnaa toddobaadkan ayaan siin doonaa cabdalla iyo idhegaase abowa idhegaase والنارد كسلامي أبوه صاحب بيال آد بعد السلام يا ملك استاد جوكتن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.